shirkadaha degmada ka rajiis garaysan hay'adaha jooga isla xisaabtan baa jira isla xisaabtankaas qoladii ku dhacda waa la xisaabtamaya si fiican baan ula xisaabtamaynaa dadka degmada Jariiban jooga oo ka shaqaysta oo ninka reer baadiyaha oo biyihii ka go'een oo neefkii ka caatay yahay baa wuxuu u diyaar u yahay oo u taagan yahay inuu neefkiina bixiyo shilinkiina bixiyo xooggiina bixiyo taas beddelkeeda waxaan leeyahay shirkadaha jooga ka hawlgala degmada ka shaqaysta in ay u dhaga furaadaan baaqayaga talooyinkayaga waxaan u soo jeedinay inay si toos ah noogala qayb galaan intii ka dambaysa hadda meeshu ragna waa jooga mas'uuliyadna waa joogtaa dadna waa jooga ninna suu rabo ugu socon maayo dad suu rabo ugu socon maayo siduu raban ugu dhaga adaygi maayo intaas waxaan leeyahay dadka ama kabaniyaasha xogaa taladii odayaasha u soo jeediyeen iyo guddiga degmada oo isku dhan qorshaha u soo jeediyey iyo baaqan u diray aan wali ka soo jawaabin shirkadihii ka soo jawaabay si gaar ah ugu mahad celinayna tixgelin bay leeyihiin ama loo kale markaan ka soo qaado waa si degdeg uga soo jawaabtay walaalayaal waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad weeye waa tabarucaad adduun iyo aakhiraba dadka anfacaya meel kale la aadi maayo meeshaas la gelinaya meeshaas ay ku shaqaynaysaa meeshaas ay ku dhamaanaysaa ha ka daalinina arrintaas annaguna saan inii sheegnay waxaanu bixinay abaalgudna waa bixinaynaa dadkana waa kala xasuusanaynaa cidda aan ka soo qayb galinna buuggooniya noogu qoraanaysaa anigu waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka degmada Jariiban inta kale oo dibadaha iyo jaaliyadaha iyo waxaa dhameeyay warkoodii waxaa dhameeyay warsame ayaa dhameeyay waxaan ku soo koobsanayaa anigu maadaama aan ahay gudoomiye ku-xigeenka degmada Jariiban Mursal Cabdilla Khalaf waxaan ku koobsanayaa degmada Jariiban aad baan u soo dhaweynaynaa shacabkeeda ganacsatadeeda culimadeeda odayaasheeda iyo dhalinyaradeeda wadadaas waxay calaamadsadeen 10 kilomitir bay calaamadsadeen reer Jariiban hadaan nahay waxay qaybsadeen lacag 50,000 ah lacagtaas 50,000 ah waxay u qaybsadeen qaab deegaan qaab shirkadood iyo qaab company lacagtaas dhexda laga jiraa heer fiican bay maraysaa dadkii deegaamada Jariiban ku magacawnaa lacagta ay qaateen waxay maraysaa meesha ugu dambeysay waxaan u baaqayaa shirkadaha sida Goolis oo kale iyo Samtel oo kale iyo lacago ku dhiman yahay lacaganaga dhiman yihiin haddana muddo dheer maraya inay si degdeg ah jawaab noo soo siiyaan lacagaha aan ku qoranay oo waraaqada ay hayaan ay noo soo gaarsiiyaan